soddonkii bishii koowaad 1984 waxay ahayd xilligii diyaaradaha xabashidu weerarka ku soo qaadeen magaalada Boorama iyo deegaanada ku dhowdhow gaar ahaan degmada Dila iyo Dareemacaani. maalintaasi oo ahayd maalin xusuus murugo badan ku reebtay shacabka ku dhaqan gobolka Awdal. duulimaadka ay diyaaradaha xabashidu ku soo qaadeen magaalada Boorama iyo deegaanada ku dhowdhow waxay keentay khasaare ba'an oo isugu jiray dhimasho iyo burbur baahsan. kasako xasuuqa ba'an ee loo geystay dadka waxa kale oo ay dhulka ku sameeyeen diyaaradaha xabashidu guryo badan iyo dugsiyo ku yaalay magaalada Boorama oo xilligaasi ay ku jireen arday yaryar oo aan waxba galabsan. maalintaasi weerarka waxshinimada ah lagu soo qaaday magaalada Boorama waxaa lagu arkayay gudaha magaalada dhiiga oo sida daadka qulqulaya iyo meydka oo sida shinida rasaysan magaalada gudaheega gaar ahaan dugsiyadii ay xilligaasi ardaydu ku jireen. ma ahayn oo kaliya dugsiyada meelaha ay diyaaradaha xabashidu duqeeyeen waxay sidoo kale weerar ba'an u geysteen meheradaha ganacsiga ee ku yaalay faras magaalaha iyadoo isla markaasina lagu arkayay magaalada gudaheega dhirta ku taala iyo geedaha oo gabi ahaantoodba dhulka ku siman. sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah dhaawaca iyo dhimashada ayaa maalintaasi ku dhawaa 200 oo qof halka guryaha magaalada lagu baabiiyeyna ay ku dhawaayeen 100 guri. dowladii xilligaasi dhulka ka ariminaysay waxay magaalada Boorama u soo dirtay wafdi ballaaran oo uu horkacayay General Maxamed Cali Samatar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo Muuse Rabiila Goodo oo isna xilligaasi ahaa wasiirkii madaxtooyada Soomaaliya. wafdigaasi ayaa markii ay soo gaadheen magaalada Boorama waxay isla markiiba booqdeen xabaalihii lagu duugay dadkii ku dhintay weerarka iyagoo isla markaasina soo booqday dhaawacii ku jiray dhakhtarka guud ee magaalada. kadib markii ay soo dhameeyeen booqashadooda waxa uu General Samatar la hadlay shacabkii xilliga ku dhaqnaa magaalada Boorama waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ciidana aanan ku gardaroonin caruur yaryar oo ardaa oo maqaarkood baranayay waxaa laga yaabaa darsiga ay qaadanayeen markaa inuu ka mid ahaa duruus diiniya. dad shacab caadi u nool noloshiisa caadiya ku jiro magaaladiisi ku nool sidaa foosha xun loo laayay. waxaan leenahay dadkii ay ka geeriyoodeen imaan Allah ka siiyo hana ku niyasimaadaan oo ha ku calool adkaadaan. annaga awalba dagaal idinka dhaxeeyay wuxuu ku geysto nabar aad filaysay waxa la yiraahdaa naxdin mare laakiin dagaalka annaga amxaarada naga dhaxeeyo kullayba annaga uma daadegno heerkay u daadegeen heerka foosha xun bini'aadanimada ka fog waxashnimada ah. kullayba annaga isuma quuro horay isuguma quurin hadda kadibna isu quuri mayno inaynu maatida laayno ma laayno maatida. waxaan loola jeeday bombooyinkaas iyo sawaariikhda magaalada meelo badan oo ka mida lagu burburiyey dad badanna ay nafta ku waayeen ama ku dhaawacmeen. haddii loola jeeday haltaa laguma baqdin gelin karayo shaki iiga ma jiro taa inaad geesinimo ziyaadaha ka qaadaysaan. la dul tago oo qolwala loo bixiyo oo wardi loo bixiyo oo shahiidiintaas bulkeedaas samayso degmada iyo gobolkaba in dadka shahiiday magacooda taalle oo loo dhiso. jaamac Sharmaaka Diiriye oo ah waxgarad ku dhaqan magaalada Boorama isla markaasina goobjoog ahaa maalintii diyaaradaha xabashidu weerarka ku soo qaadeen magaalada Boorama ayaanu kula kulanay magaalada waxaana wax ka weydiinay sidii ay maalintaasi wax u dhaceen. waxay ahayd maalin cajiib ah oo naan dhacdo oo kale aanan arag ama aanan laba arsheegi karin. sidaa daraadeed waxaan ahaa ciidankii difaacirka ee Boorama waxaan joogay Boorama gudaheega saacadu waxay ku beegnayd meelaha 10 minida yar dhiman
ayaa subaxnimo markay dhammaan ardayda iskuullada ay wada galeen ayay ahayd markaa waxaa ii suuro gashay inaan ku rido xabado dhan 57 xabo oo aaggii kolka aan haysta ee ah iskuulka Sheekh Cali Jawhar oo aaggii kolka mid fiican haystay hawada waa la qaybsaday sida kolka hore baan u deganay magaalada Boorama markaa aaggii kolka aan haystay ahaa aagga iskuulka Sheekh Cali Jawhar yaalay dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar markaa maalintaas maalin aad iyo aad u bay ahayd cirku wuxuu ahaa cir daboolan oo ceeryaan ay dabooshay diyaaraduhu ma aan baran kolkii hore ee waxbarashadii hore waxaan xoogaa sahlanayd inaan noo suuro gasho cirka oo caynkaa daboolan ka dagaalano markaa waxaa nala kulantay cirkoo ceeryaani qarisay oo naan cirku meel ka muuqata ayna jirin haddana diyaaradii Itoobiya inay sidaa noola dagaalamaan markaa waxay naga soo gelayeen qaybta bariga waqooyi ee imika jaamacadda Amuud oo kale ay ku taalo ayay naga soo gelayeen waxayna nooga baxayeen kolkay wax rideenba dhinaca galbeed koonfureed Itoobiya kolka ay naga xigto ayay nooga baxayeen markaa dhibaatooyin weyn baa meesha ka dhacay geeriye foolxumo magaaladu mar quray dantay ay kala yaacday wax taagan dad socda iyo wax mashquula iyo wax dhintay iyo wax geeriya dhammaantood ayay dhacday maalin mar qura dig irida xidhatay mid baa hebla ku dhacday horta waxaan kolkay wax kugu ridaan waxay u socdaan xaggii ay ka yimaadeen dawladoodu ka xigtay marka waxa laga yaabaa dhaawaceegu inuu meel fog oo ku dhaco inkastoo warar helaynay meel bay wax ku dhaceen ay ahayd haddana nooma suuro gelin waxaan anagu ridnay inaan kolkaa gacanta aan ku dhigno oon qabanno waxaa kale oo xusuusta murugada lihi ilaa hadda maskaxdooda kasii dhex guuxaysa ardaydii maalintaasi ka badbaaday weerarkii waxsinimada ahaa ee ay diyaaradaha xabashidu ku soo qaadeen magaalada Boorama waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii maalintaasi ku jirtay dugsiyada ay diyaaraduhu weerareen oo aan wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen maalintaasi. Bismillahir Rahmanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. marka waxaan in yar ka sheekayn maalintii dhacdadii dhacday ee markaasi ahayd diyaaradda berigeena garaacday waxaan ahaanu markaasi Sandar 7 xaqiiqatan meelaha waxaan maleynayaa haddii si ka qasnayn inaan nus saaciyi ka soo noqonay iyo in barkay horta galaaskana ku dhex jirnay marka bahashu noo timiday xiin fara badan iyo argagaxda markaa nagu furmay argagaxii iyo xiinkii dabadeed waxaan maqalay garaacitaan ardaydii way kala yaaceen in badan waxay ku dadaaleen macallimiintu inay markaasi ku celiyeen way kari waaniyeen way naxeen kadib arrintii farahay ka baxday waxay ku dhacday rasaas markaa iskuulka elementariga oo in yarsan noo jiray ayay markaa ku dhacday iskuulka elementariga iyo dhayga waxba iskuma jirin waxa u dhaxaysay xad MCH-ka dhexe ee markaasi ugu horeeyay MCH-ka ugu horeeyay markaasi xarunta imikana ah kaasa markaa hooyooyin fara badan baa markaa kuwii ugu jiray isla maalinta oo markaasi hooyooyinka uu reeyay ay xilligan gaadhi jiray sanu yaacayni inuu soo yaacayni marka xaqii xafada u yaacan ayaa waxaan nimidnay markaas inaan MCH-ka garab nimaadno MCH-kii markaan garab nimidnay waxaan aragnay hooyooyin markaasi qaar dhaawaca qaar markaasi maxay dhintayba ciyaalkii aan soo cararayno kale anigu inamay hor yaacayay waan waayayba idin waxani iyo seef bahashani markaas markay ku dhacdo dhulka qarxado fadhiday daadinayso wax kala yaacayahayd alaabta kala yaacaysa kurka ka jaraysa idin inaan wax garanay markaas ay hururdayo kale way gabigiisa meelmihii ka hor orday ku maray qiiq iyo waxa isqabsaday markaasi meel gabigeediiba dambas geed weyn baa ku oli jiray markaasi MCH-ka hortiisa geedkii baa soo rugmaday marka waliba soo gaadhin lama tiriganida waa dhulka aad loogu dhintay ardaydu xoog ay markaasi ugu dhinteen waan ka soo wareegay markaas oo dhinac kale koona kale ka soo maray anuu xoog u ordaya ayaa nimid markaasi gurigayay balcad baa lagu dhigan jiray marka nimcadan dadku jalaabibta iska dhiganayaan xijaabka habli qaadanayaan ee abaayadaha iska sitaan ma jireenin waxa shaariis walba ku dhigan jiray iskuulka waxaan naga dhaadhiciyay kalarkan huruuda xitaa laftarkiisa inay markaasi bacdu ay soo eeganayso diyaaraddu shaarkii yaraa bir horaan toornay orodka naga dhacaya tan xaafadii sidoo ku yimid gurigii waa ilaa ilmo yar oo markaa noogu yaray hooyadu mulku ahayd oo kaliya hata markaasi gurigii joogtay taas oo markaasi ay hooyana isla iskuulkan laga tiriga ciyaal markaa la soo eriyay oo walaalaha laba ciyaal oo la soo eriyay ayay ku celisay hooyaha ku maqan iyo ilmihii yaray hooyo musha ku ahayd oo joogto guriga
caruurtii kalena dhammaantood ay madrasadii iyo iskuulka kula maqan yihiin malin dadkii yareed baan soo qaaday kuwii yaray kale macaamadaha ku kala maqnaa baan soo urursaday waan soo dhaqaaqnay marka xaggan faaraxyo buurta faaraxyaan miday anoo moodaya markaa buurta faaraxyo inayna markaas buurta faaraxyo waxaan moodaya markaa inay dee madmadkeega ayaa buuraha ka qabta dadka naga dhaadhacsanaan jiray diyaaradda kadib waxaan soo wareegay buurtii anagoo fadhina carruurtii waan kala luumnay waxaa naga halaabay arday labadii arday hooye markaasi ugu tagtay muuse iyo maxamed bay kala haayeen maxamed intii aan isu gursanaynay markaa aan carruurta ilmaha yara dhaqan xambaaranayay ee kuwa kale kulba dhinac u doondoonay ayuu soo gaadhay isagoo oo gebigiisaba aad dhiig dusha ka saaran yahay dhiiggan markaa waxaan moodayaa inuu wada gebi dee isaga shabag diyaaradda ka dhigtay idee shabag uma ahayna hilibkii ciyaalka ee firdharbay ayaa ku daatay markaan diday nala joogtay ayaa markaa biyo qaado ka maydhay nabad kaliya hata markaa ka aragnay halkaa dhafoorka kaga yaala halkaa dhafoor taaga inankii yaraa soo kaxaystay waxa iga maqan markaa inan iyo hooyadii intayadii oo yaacayna ayaa buurtani midna hooyo markaa waxay buurta hoosteeda ka qaynaysaa caruur caynka yaa arkay bay leedahay ma kulli aad baan markaan xasuusta si kaan ku noqdaa maalinta laftirkii murugo weyn bay ku noqotaa waxa dhacday markaa in hooyo si nagu yeedhisay waan buurta ka qaynoon waana kan hooyo baan ku yidhi halkanaan joogna dadkii waxaad moosa faaji'a magaalada inay ka wada dhacdo argagax baa qabsa dadku isku badhan waxbay isku dhaafayaan naxdin iyo welwel baa dhacay markaa meelaan layloobi karin bayd maalintaasi oo naxdin leh xaqiiqatan waxaa dhacday inaan u yeedhay hooyo ilmihii yarayda afartanka kasoo ka bixin oon halkaan ka qaaday markaa 11 iyo barkii subaxnimo ayaa waxaa laisoo hooyanaan heshay 4 galabnimo waxaa dhacday ciyaalkan allaana hay mid baa ku aasan iskuulkii labatrigee dumay waa professor muuse maxamed diiriye wuxuu ku aasnaa markaasi iskuulkii dumay jabhad la oran jiray horyaal ayaa ka timid degmalaqas oo soo gurmatay jabhadaas ayaa waxay sameynayay waxay dadkii dhintayna way aasaysay kuwii dhaawac ahaana markaasi way faqaysay oo meeshana la faqayay hooyadii meel unbay istaagtaa la nagu dhaanag markaan ka maqanay markii dambe hooyo nooga sheekeynaysaa waxay tiraahdaa meeshan inankaygi ku jira inankaygi halkan ugu jira miidkii way ka weyday dadkii googo-ay kuma jiro bay tiri halkaasoo ilma ay ku jira daabaysaa eedaankii maqribka hortiya ayuunbaa meesha laga soo saaray markaa inankii yaraa isagoo markaasi meelna waxba ka qabin isaga iyo 2 arday oo miida ilaahay waa ka deer labadii ugu talagalna way dhinteen isagiina isagoo noolba markaa soo baxay oo markaasi nolol ayuu markaasi ay kusoo noogu soo kaxaysay kadib anaga halkan markaasan ayna soo kaxaysay xafadina keentay kulley maalintaasi maalin aad iyo aad u murugo lahayd maalin aan layloobi karin bay ahayd maalin naxdin labay ahayd ubax yar dowladana ubax laysa iyaal laysa idin dowladda ciidamada la laaya ciidan cadow kugu abala laaya idku cadow ma waa ubad soo koraya xaqiiqatan nooc min adag aad u adag weeyaan yuhuudda ay iska saameeyaan xabashada iyo yuhuuddu aad bay iska saameeyaan waxa weeye amxaaradan maanta markaasi iyo laftarkeedu hay markaasi iskaga dhigayso Soomaaliya inay tahay jecel oo Soomaalida ka naxayso difaacaysa cadowga weeyaan islaamka waa yuhuudda walaalihii oo yuhuudda gaaban weeyaan kulli markaa intaasan ku soo koobaya maalin murugal oo aad weyn markaasi naxdin la weeyaan igana oo hinaysan markaan xasuusto han ka saxsana oo aan aad ugu argagaxo wax kasta markaasi sheekooyin iyo history baa laga sameeyaa sheekooyinka hadal dhaadad carruurtaada ugu sheekaysid ama de walaalahayga yar yaraan markii dheeraad uga sheekaysid si kala noqon jiro rugmadi aad bay u adag tahay markaa ka sheekay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa Cabdullaahi Xasan Boqorre ahna ardaydii barigii 1980kii diyaaradda ku shaysay Boorama ahaa starter 3 dugsiga hoose ee Xawtaako runtii waxay had maalin murugo leh oo ummadda soo Boorama aad baa soo gaadhay diyaaraddu waxay ahaayeen 4 wayna rusheeyeen 10kii iyo barkii ay magaalada soo haabeen waxay soo mareen qaxootiga Darimacaani dabadeed waxay ku dhufteen 2 haamood oo ay moodeen magaaladii dabadeed way soo socdeen anigu waxaan ku sugnaa maalintaasi seeraha Boorama waxaan ku eegeelo waan eegi jiray 4 baan ahayn 4tayda waan kala baxsanay runtii magaalada naxdin weyn ayay u ahayd maalintaasi xusuus taariikhiya oo ummadda Soomaaliyeed ay wada ogtahay bay ahayd arday badan baa runtii ku dhimatay oo dugsiga elementary-ga ka dhigan jirtay markaasi waa taariikh aad u ballaaran baa naxdin aad u ballaaran ummadda reer Boorama subaxii marka saacadu ahayd 7 barkii iskuulada u dareertay ummaddu waxay u dareertay iskuulada iyo shaqooyinka waxay ahayd runtii farxad isla 10kii iyo barkiina waxay isku bedeshay naxdin murugo leh dhimasho dhiig dhaawac xiin diyaarado
ay soo hadeeyeen magaalada Boorama oo diyaaradaha hay'adda Ethiopia wiista Haile Mariam kuwaasi oo ah miiga dagaalka ayaan hadeeyay anagoo magaalada oo dhan oo yaacdo dumar haween dhalinyar caruur waxba ma seeginba waa la wada dhaawacay dad badan bay leysay waxa lagu aasay seeraha taariikhdu way ku qoran tahay ilaa iminka tuur qaylo ayay ku taaladu taariikhdu ma duugowdo haddaan dadkaygu daranyada ka eegin dhibaatada maalintaasi ku habsatay magaalada Boorama waxay noqotay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu culus ee soo maray magaalada oo ilaa hadda looga sheekeeyo dhalinyartii xilligaasi yaryarayd iyo kuwii xilligaa kadib dhashay magaalada Boorama waxa ilaa hadda ku nool dad ay curyaamiyeen iyo qaar ay indhaha ka tuureen diyaaradaha xabashidu oo aan awood u lahayn inay maanta shaqaystaan oo ay nolol maalmeedkooda la soo baxaan waxa kale oo intaasi u dheer dadkii xilligaasi dhaawacmay inaynan awoodi karin inay ka sheekeeyaan sidii maalintaasi ay wax u soo gaadheen isku soo wada duubo maalinta ayaanan laga xusin guud ahaan magaalada Boorama marka laga yimaado xasuus kooban oo ay qoraan qaar ka mid ah shabakadaha ka howlgala gobolka Awdal mana jirto cid gacan qabatay dhibanayaashii maalintaasi ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii diyaaradaha xabashidu ka geysteen magaalada Boorama intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay duulimaadkii ay diyaaradaha xabashidu ku soo qaadeen magaalada Boorama sanadkii 1984 waxa barnaamijkan isku soo duway idinna soo jeedinayay anigoo Mursal Cilmi Cumar ah intaanu ku kulmi doono kankiisa kale dhammaantiinba nabad geliyo